وأنيقو هديق جسود موسى بيحي عبد قدوميها حزبك تلضح يا سوماليلان أهنا مشرحة جقادة مدحوينها حزبك كلمي وحو كل شيء ميجي هرقيسان 1948 كي wuxuu sheegay isbuucii dhaweyd uu la hadlayay BBC-da inuu waxbarashadiisii qur-aanka dugsiga hoose iyo dhexeba ku qaatay magaalada Hargeysa sidoo kale jaamacadiisii wuxuu ku dhameeyay dugsiga sare ee Camuud ee Boorama ayuu ku qaalin jabiyay 1970gii kadib wuxuu ku biiray ciidamada cirka Soomaaliya sanadihii 1970gii ilaa iyo 1973gii wuxuu tababar sarkaalnimo soo siiyay ciidankii midowga Soviet ee Soomaaliya xulafada la ahayd markii uu ku soo noqday dalka wuxuu ka howlgalay saldhigyadii ciidanka cirka ee Balidogle Baydhabo iyo xarunta dhexe ee ciidankaasi ee Muqdisho Muuse Biixi Cabdi wuxuu 1981 ilaa 1982 tababar ku qaatay saldhigga militariga ee Mareykanka ee gobolka Ohio kaasoo loogu magacaabo Dayton Air Base haddaan wax yar niiga taataabto Dayton Air Base waxa waaye meeshii u horeysay ee laga hintisay diyaaradaha hadda caalamka iskaga goosha Cornel Muuse Biixi Cabdi ayaa sidoo kale tababar ku qaatay akademiyada gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ee lagu magacaabo Fort Lee sanadihii 1983 ilaa 1985kii Muuse Biixi Cabdi markan kuma noqon ciidanku ka midka ahaa ee Soomaaliya wuxuu toos uga tegay Ethiopia bishii shanteedii sanadkii 1985kii wuxuu ku biiray jamhadii SNM ee dagaalka kula jirtay dawladii Maxamed Siyaad Barre Allaha u naxariiste Cornel Muuse oo ka mid ahaa taliyaashii ugu magaca dheeraa SNM markii dawladii dhexe ee Soomaaliya burburtay ayaa Somaliland gooni isu taagkeedu wuxuu ka noqday 1993 wasiirkii arrimaha gudaha ee Somaliland dawladii madaxweyne Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal wuxuuna wasaaraddaas hayay muddo lagu qiyaasay ilaa 2 sano waana meesha lagu dhaho meesha ku soo caanbaxay Muuse Biixi Cabdi Muuse Biixi wuxuu ka mid noqday guddigii fulinta markii la aasaasay xisbiga kulmiye bishii May 2002gii isagoo gudoomiye ku-xigeenka koowaad loo doortay 2008kii Muuse Biixi waxaa gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye loo doortay 10kii November 2015kii kadib shirweynaha xisbiga waxaana loo xushay inuu noqdo musharaxa xisbiga gudoomiyaha kulmiye wuxuu ku hadlaa luqadaha Soomaaliga, Ingiriiska, Carabiga iyo sidoo kale Ruushka wuxuu jaamacadda Hargeysa ka dhameeyay shahaadada sare ee cilmiga xalinta khilaafaadka 2008 ilaa 2010 intii u dhaxaysay Muuse Biixi wuxuu leeyahay 2 xaas iyo 7 caruur ah 3 wiil iyo 4 gabdhood wuxuu hadda la looltamayaa 2 xisbi ucid iyo wadani madaxweynaha shanaad ee Somaliland isagoo metelaya xisbiga hadda talada haya ee kulmiye ayaa waxaa la sheegaa Muuse Biixi inuu hadaladiisa cad yihiin mowqifkiisana cad yahay Muuse Biixi waxaa lagu yaqaanaa nin adag inuu yahay wuxuuna ahaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliya sirdoonkeedu ugu adkaa Muuse Biixi hadaladiisa waa ninaan ka soo noqon mowqifkiisuna adag yahay waa anigoo deeq jaamac geesood wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh